وحال يرادا دقوني ماشي لو دغاشي اوغيدي ماشي لو هشي موغو waa heshiisaan nahay dalkaas hadaan heshiis lahayn ma soconayo dalkaas qarow ka sii dhacaya aniga madaxweynaha dhammaan waxa waajib naga saaran yahay inaan dalkaas doorasho gaarsiino annagoo wada socono si nabad ah oo xasilooni ku jirto oo isfaham ku jiro dhammaanteena dalkaas ayaan u shaqeynaa dalkaas ayaa naga weyn wax caqabada ama wax iskhilaaf ma jiro warqadeena waad aragteen taydina waa akhrisin Soomaan cid aan taagay iyo cid aan ka soo horjeedo malahan wada shaqeyntan waa waajib weey taasaasan uga baxaya xiriirka Kenya iyo Soomaaliya dalkan waxaan ku noolaa 13 sano koytoon bilood aan ka maqanahay Soomaan waan ogahay Soomaalida ku nool dhaqaalaha naga yaalo caloosheenna way xoolaheena yaalo dadkeena yaalo indhaheena yaalo wax kasta yaalo qof arkay kaliya aan fahmi kare qof wadamada Yurub jooga ama wadamada kale Afrika jooga ma fahmi karo waxa halkan naga yaalo saa darteed anoo taas og ayaa waxaan go'aansaday u istaagay inaan isku dayo inaan soo celiyo xiriirkii labada dal ka dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya xiriirkaas oo ku salaysan mid siyaasadeed mid dhaqaalo mid amni waxaan idin sheegayaa waxaan hadda u imid halkan inaan wax saxiix ah uma imaan laba reer oo daris ah aan tusaale u soo qaadanaya laba guri isku dhagan laba ciidan degan yihiin markay isdagaalaan cusbada iyo ciidda iyo cusbada iyo saliidda may kala qaataan mise marka hore la dhayaa marka hore dhaawac la dhayaa Soomaan aniga dhaawac inaan dhayaan halkan u imid uma imaan cusbo iyo sokor iyo saliid inaan kala bedelano saa darteed waxaan rabaa inaan ogaataan inaan wax saxiix ah halkan uma imaanin waxaan kale rabaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inaan u sheego wiilka iyo gabadha Gaarisa joogo wiilka iyo gabadha Kismaayo jooga Jigjiga jooga Muqdisho jooga Hargeysa jooga Garowe jooga Jabuuti jooga dhammaantood waxay ka midaysan yihiin Gaalkacyo iyo Hobyo jooga dhammaantood waxay ka midaysan yihiin dhulka cirka iyo badda Soomaaliyeed waa lama taabtaan maanta igama filanaysaan berrina igama filanaysaan heshiis bad oo heeg yaallo oo maxkamadda adduunka taallo oo dhawaan aan sugayno jawaab inay ka soo baxdo ka hadalkeeda iimana banaana mana ii banaanaan doono jawaabtaasaan sugaynaa madaxweyne Uhuru saaxiibkay walaalkay saas hortiisa uga sheegay lama gamban isagoo ay hor fadhiyaan saas ugu sheegay waa lama taabtaan meeshaas ayaan jawaab ka sugaynaa laakiin shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waxyaabaha saaxiibaday labadan bari al-Cadaala Maxamed wasiirka arrimaha dibadda 4 saac iyo macallimo nafta laga qaaday si ay u difaacayeen war wax ma saxiixin wax ma yeelin Soomaan cid wax saxiix ma lahan taa ogaada cid saxiix doontana ma lahan intaan joogana hadduu Ilaahay awooddaas siiyo cid ku xadgudbaysa ma lahan wixii Ilaahay naga siiyo heeg ayaan arkaynaa jawaabteeda markaas ayay u taalaa wixii ka soo baxa dawladda Soomaaliyeed oo hadda joogta ama haddii ku soo aado dawladda cusub oo dhalanayso waa hawl u taalo waxaan maqli jiray Soomaalida 100% oo muslim Soomaan markii la isqabto mid kale rabeen la xumeeyo waxa la yiraahdaa murtad Soomaan marka siyaasadda la rabeen la isku xumeeyo waxa la yiraahdaa badu soo saxiixaya cid badda saxiix karta malaha cid ku dhiiran kartana ma jirto si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.